madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta qasriga madaxtooyada Garowe ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo safiirka dalka Hindiya ee Soomaaliya Ambassador Rahul Jabra kulankan oo ahaa mid muhiimadiisu ay sareyso ayaa looga hadlay xoogana lagu saaray arrimaha ay ka mid yihiin caafimaadka iyo waxbarashada madaxweyne Deni ayaa ugu horeyn ka warbixiyay kulankani waxaa maanta bishu 29 bishii June magaalada Garowe ku yimid booqasho safiirka dalka Hindiya iyo wafdi uu hogaaminayo waxaan aad ugu mahadcelinaynaa booqashadan oo ah booqashadii ugu horeysay oo yimaado safiir Hindiya waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dowladda Hindiya oo xiriir taariikhi ah oo soo jireen la leh geeyiga Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland oo xiriir ganacsi iyo mid waxbarasho iyo mid caafimaad intaba ay ka dhaxayso oo runtii dadka jaaliyad badan oo Indian ay dalkan iyo khaasatan Puntland ku nooshahay jaaliyad badan iyo dad fara badan oo arday iyo dad caafimaad u aaday isugu jira iyo ganacsatada ay Hindiya xiriir iyo booqasho inta badan ku tagaan waxaan ku faraxsanahay in maanta ay yimaadeen oo ka hadalnay arrimo badan oo la xiriirka guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland sidii loo horumarin lahaa xiriirka ka dhaxeeya dhinaca ganacsiga xiriirka ka dhaxeeya dhinaca waxbarashada gaar ahaan Puntland in ay qondo fiican ka hesho ardada soo baxda sanad walba inay helaan deeq waxbarasho ee dalka Hindiya oo runtii safiirku arrintaas si weyn uu maaragtay u ballan qaaday sidoo kale waxyaabaha aan ka wada hadlayno waxa ka mid ah sidii dadka caafimaadka u aado oo ay ka haysato dib fara badan dhinaca fiisooyinka iyadana xal loo helo oo ay magaalada Garowe ay laga suuro geliyo in fiisooyinkooda iyagoo halka jooga ay helaan oo dawladda iyo safaaraduna ay wada shaqeeyaan oo aan rajaynayno iyadoo faahfaahsan in mar dhow la soo bandhigi doono waxaa kaloo runtii ku faraxsanahay in xiriir dhinaca dhaqanka iyo maaragtay isdhexgalka iyadana uu ka mid yahay waxyaabaha safiirka aan ka wada hadalnay oo runtii wasiiraduna ay si hoose wala hadleen waxaan rajaynaynaa wasaaradaha arrimahaas khuseeya caafimaadka iyo waxbarashada iyo arrimaha gudaha iyo ganacsiga inay sii wadi doonaan wada shaqaynta dhow safaaradda iyo dawladda Hindiya laga leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta soo dhaweeyno Ismaaciil Axmed Cabdi muqbayaha badda 24 TV magaalada Hargeysa